بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بركاته السلام كبعدي هل كان عاوة حفظيا راس ليلة هير يوسف راسس كميضة ayaa wada fadhiya waa dadyowisa waa gadiideer iyo bahawal kala qaadqaadi maynee hees baa odhan jirtay xisbigii wadaba baabaayo u lahaa annagu idinkaanu nahay idinna annagaa tihiin dadyowisa baanu nahay bay odhan jirtay heestaas aad baan u dhegaystay heestaa waa saddex kelmadood oo xigmadu ku dheehan tahay marka hore beesha gadiidyar ee huwanta ee aanu u yeedhnay ee naga soo ajiibtay yeedhmadayadii mar kale gaar baan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan aynu caawa isugu nimi beel ka midaannu hore isugu nimi xalay baannu wada joognay xalay ayaannu wada joognay waxa ay kale awal anagu si kale aanu soconayno waxaanu islayn reerba maalintii naaba habeenkiina isag taaga laakiin xalay beesha Axmed Yuusuf aanu halkan wada joognay waxay xujo nooga dhigtay haddaanu nahay gadiidyar waanu kala maqannahay haddaanu nahay gadiidyar waanu kala maqannahay waxaanu idin sheegaynaa annagoo midaysan isugu kaaya yeedha oo dee aannu idinku nimaadno wixii aannu markaa uga baahnayn naloo ballanqaad laakiin ballanqaadka waxa ka uu ruxmayaayo waa nalagu ruxayaa waa nalagu hayaayo beeshii aannu wada helno ayay ahayd way ku mahadsan yihiin annana waannu ka aqballay waa ilaahay mahadii caawo haddii halkan ay wada fadhido beeshii waa ilaahay mahadii imaatinka aad noo timaadeen mar kale waan idinku mahadnaqaya anigoo aan hadalka aad u dheeraynayn iyadoo odayaal iga dambeeyaan aan doonaya baaqigiisa inaan uga tago waxaannu idinka rabnaa taageero culus weliba oo ahayd tii aynu lahayn taynu isku lahaan jiray taynu weligeen u midaysnayn caawana haddii ilaahay la keenay weliba markii noogu horraysay annaga ay tahay inaadna siisaan taageeradii baannu idinka rabnaa inaadna siisaan oo nagu taageertaan oo musharaxaa annagana siin maysaan musharaxaa aynu soo wada saarro waa inoo siman yahay adeer waxba lama kala ahee oo aad nala soo saartaan ayaannu idinka codsanaynaa reer qura baynu nahay awow iyo adeer iyo ilmaadeer baynu nahay waxba ma kala nihin hawshaynu isugu nimina mid iminka laysu sheegaya maha waa mid soo jireena bay ahayd mid dhowr meeloodla bay ahayd intii hore hawshaa ee marba meelay maraysayba waa laga wada socday ninkoogiiba waa ogyahay waxaa jirtay in mar dhexe tafraariq layna geliyey innagoo reera oo ilaa iyo 60kii si u soo wada dhimanaynay u soo wada dhaqmaynay in wax laynaga dhex kiciyey oo niman qaraliyaal iyo niman gudul ku sheegay waxay dhex geliyeen waxba kala yaabaa dhacay qoloba meel bay aatay annagu markaanu ardaagana inagoo isku mid aanu ardaahayn ayaantaa waa nala tuuro waa meel duleedkaana lagu tuuray annana duleedkii baanu ka dayrro meel kaleaanu gallay laguma kala tegin wax kastoo nagu yimaada wax kasta oo adagoo reerka ku yimaada inagunbaa xalalana xusbina ma xalalo dawladina ma xalasho innagaa waxalalo dhammaystay waxba inagama xumaadaan ninkoogiiba waa ogyahay taa caawaynu fadhinaa xafladda iyadoo salaaman oo aan mar labaad salaamayo waa tii weligeen inaga dhexaysay aynu ku soo noolaan jirray aynu ku dhaqmi jirray tii uun weeye dhowr xafladood bay yeelatay tii u dambaysay waa caawa haddii badma xalay laba reer oo dee laba reerabaa halkan shir ku qaatay sidaa loo sheegay gadiidyar bay ku xidhantay annana waa raalli gelinayana way ku xidhmeen waxa loo jeedana waa ujeeddo ninkaa leedo axmed xasan faarax
inaan nala soo saartaan oo aynu soo saarro hadduu meel gaadho iyo hadduu nin qiibala noqdo iyo hadduu dhaco magaciisana waa nala leedin mafciisana waa nala leedin innaguma wax kala sheegnay waxa ma kala lihin ninka raga ee reerka ka dhashay ama Ismaaciil Cumar ama reerihiisa qoys walba wax buu taraa ninka liitaana qoys walba wuu la fadhiistaa waxaan leenahay annagoo moodnay inaanu dee idinka xigno waa idinkama xigno sinaba idinkama xigno nala soo saara nala xoojiya nala taageera tulliimaanu ku haynaa kalgacal iyo walaalnimaanu ku haynaa ka dambayn doonaha wixii gaadhana taayna mid kale dhigan baa u dhisan waxa weeye waxba isu balbalaadmayna waxa jira waxa weeye cadawgu wuu badan yahay yaan laynaga faa'iideysan haddii ayaanba laba reer la kala siibada cidlaynu soo baxayna waar waxba ma kala nihiin hadalka hoos loogu fiirsado marba wixii musharaxeedan laha la soo saaro inagoo carabka iyo caloosba ka wanaagsan anigu waxaan kaga gudbayaa waxaan intaa ku daro kala garan maayo meesha yimi hadday odayaal yihiin iyo hadday cuqaal yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday garbayn yihiin hadday dhalinyaro intaba waan salaamaynaa salaanta islaamka ayaanu ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu hadal badan u bixi maayo waxna qaaqaaxi maayo wax la og yahay baa ogaal uma baahna baa leeyahay waa niman xigaala ayaynu oo wada dhashay baynu siyaasadahan iyo waxani waa wax iska guuraya ama iska tegaya weeye waxaynu wuxu wadnaana waa inaga weeyaan meel kale inagu maanta wax ugu wadno qoladiina jinaaxa dee dadka asagoo reerku reer Yuusuf yahay haddana dee haybaa loo kala sameeyey bahawal dee waa saddex reer weeye waa Wacays Yuusuf waa Samatar Yuusuf waa Aadan Yuusuf dee haddana waxa weeye Axmed Gaal dee asaguna waxa weeye dee waa niman muun Ismaaciil oo dee nala xulfa ah oo nala islaani weeye sidaa markay tii haddana dee gadid yarne dee waa la saarado haddii alla ka dhigaayo dee Cabdi Yuusuf iyo Xasan Yuusuf iyo haddii alla ka dhigaayo dee waa xulfa weeyaan magacyada dee hore loo saaray mid caawa dee jooga ma aha waxaanu leenahay saddexda magac aan meesha ka sheegayno Axmed Yuusuf iyo Xasan Yuusuf iyo Cabdi Yuusuf walaaladayada waxaanu ka doonaynaa maanta taageer ayaanu ka doonaynaa tolliimaanu kaga doonaynaa wanaag baanu kaga doonaynaa dee wax xigaalkayo waxaanu leenahay dee kan idinkama xigno laakiin waxa weeye dee bahaha uu la sheegay uu nagu raacsan yahay haybna idinkama xigno tolliimana idinkama xigno waxaanu jecelahay oo idinka doonaynaa oo aanu caawa idinka doonaynaa haddii alla ka dhigay aanu idinka fadhinaa inaad si wanaagsan noola qabataan oo idinku gacanta ku qabataan oo idinku nala haddii alla ka dhigaayo dee nala wanaagsan baanu doonaynaa xigaalnimaanu idinka doonaynaa waananu idin salaamaynaa aad iyo aad baanu idin salaamaynaa sharaftan aad noogu timaadeen ee wanaagsan ee aad u fadhidaan ee aad noogu timaadeen aad iyo aad baan ilaahay baa mahadli ayaanu ugu mahadnaqaynaa waqtiguna waa kulayle haddii alla ka dhigaayo waana rabadaan hadalka waxba ku tiigaali maayo waxa loo jeedaa waa muhiimad weeye waa ninkaa waxa weeye damac ninkaa ina xasan dhuux ee weeye ninkaasaanu doonaynaa nala soo saartaan oo nala qabataan oo garbaan nala qabataan oo madax nala qabataan oo mijaan nala qabataan saasaanu idinka doonaynaa xigaalnimo tulliimaanu idinkaga doonaynaa waanu isku hubnaa inaanu nasiinaysaan haddana dee waa idinka codsanaynaa oo dee codkayagaanu dhiibanaynaa hadalkii waxaan kaga baxayaa dee hadal lays yidhaahaa maya hadhina waxa laydinka doonayaa waa cod weeye mar labaadka waxaan u mahad celinayaa xigaalka nagu marti qaaday madashan ee noogu yeedhay wixii ay doonayeen noo soo jeediyey ee afkaartoodii noo soo jeediyey ee waa inaan wada dhalannay iyo xigaalnimo noogu yeedhay mar labaadna iyagana u mahad celinayaa haddii aan mahadnaqa intaa kaga baxo iyagoo waxa aynu nahay aynu garanayna waxaynu nahay makuu sheegnaa horta isu sheegi mayna waxaynu nahay qoys baynu nahay marka hore qoyska aynu nahayna wixii ilaahay uu maaligay uun baa yaalla waxaan alla qorina lama calfado xildhibaan ruush oo maanta taageerana looga doonayo oo ahaa xildhibaankii ugu horreeyey ee Ismaaciil Cumar ee Ishaaciya muddo 8 sannadoodna dhex taagnaa oo sidii Nabi Nuux aad iyo aad ilaa looga wareejiyay oo aan u malaynayaba in isaga tiisiina soo dabartaybo anigu afka Axmed Yuusuf marka ugu horeysa horta ku hadlay oo kii gadideerba ku hadlin dabardambeedkiisii uu halkan baana keenay aan qabo inuu isaguna keenay
oo sidii nabi nuux 8 sanadood inaga dhex qaylinayay oo laha warada reer Yuusuf waa sharaxnaa war waalidin doonaya war xildhibaan golaha baarlamaanka u taagan baanahay war cid iga soo horeysay ma jirto war afar waraaqood baa la saxeexay oo heshiisyadii reeraha ah oo kii bahawala oo kii guuriga gobonimo ah oo kii ka dambeeyay guuriga gobonimo ku asaasnay ah oo kii kuwii ka horeeyay ah oo intaba dhagaha laga furaystay maanta nafsigii baa horta keenay in la taageero waxaan leenahay si mug iyo miisaan bale yaanu idin la qaadanay una taageerina haddii aan intaa kaga baxo hadalka oo aan kaa kaga gudbo dee waxaa la yidhi maalintiina odayba loo shiraa habeenkiina horeba loo shiraa hadalkaa xalay idinmaan odhanaynin waxaanan idin odhanaynin dee dhinac bay maqnaa marka gadiiray kala maqan tahay waax bay maqan reer Yuusuf waa 3 dhardhaarna dhardhaar kama maarmo gadiidyarina ma kala maaranto waa tol iyo xigaal isu miisaaman baynu nahay baho gadiidyar iyo muusiya wixii soo raaca baynu nahay 3 dhardhaar isu dhigba baynu nahay dhardhaarkayga caawa ila jooga ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inay madashani ka soo qayb galeen waxaanaanu leenahay ha dhowto oo yaanu arkin qoladiina baha walanagu gadiidyar haddaanu nahay maba kala hadnee idinkoo kuwa hawla dhaleen iyo meel kale codka siinayo xaqayga ka dhici maaye xaqiina iyo ka dhici wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الصلاة والسلام وحسلام يا مركو الرئيس إلهي بمهدله مركو اللباد وحلو مهدنا قيا حقالك مرت شرف كان أهلية السكاني أيها مهدس كله وحسلام يا جدي وقاشة ويلك وحجرتك لأن يرادا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنت عيرها خيرك جديد يرى هذا وحويان أنتي قرصة بدنيدة نور بميل كسر شيء سلان شيء يعني هذا سوى شيء كيسات زينتا مذون بانا على فكيشة وح للدولة يعني واحد عدك حجال كان القوة قديمة يعني ولا بينه كهرباء وحوا كهرية نيري إنك مودة تجين هالك وحين نمي والله ينقو مرتقات كل عدبة اللي نقربي marka nin maqani waa maqan yahay ninka jooga warkaaga cadee ruushow marka hore waan ku codaynayna haasa Yuusuf waa dad ballaaran laakiin hoggaan buu leeyahay aniga iyo da'yarta iyo dumarku waanu ku codaynayna ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in shir khayr qaba ilaahay inooga dhigo oo midhadhalkiisa aynu aragna dhawaan ayaynu ilaahay ka baryaynaa waxaan aad u soo dhaweynayaa xildhibaankan halkan loo fadhiyo ee sharaxan ee la isku gartay inuu xaq u leeyahay oo 8 sanadood sharaxnaa oo aan maanta cidina lahayn xaq uma leh oo xagga Allah iyo xagga dadkuba ay imka isku raacsan yihiin xildhibaankan waynu ognahay in badan buu soo samray 8 sanadood buu u sharaxnaa reerka maantana waa joogaa xariwaa buu la baxay ilaahay baa wax ka wada waan taageersanahay anigoo ku hadlaya afkayga afka reer Xasan Yuusuf afka caaqilka oo ila soo hadlay oo ila waan xanuunsanayaa taga reerku waa ballaaran yahay reer Xasan Yuusuf kulli dhinaca kalena way ku jiraan laakiin aniga iyo taageerayaashayda iyo inta halkan fadhida waxaanu la soconaa taageersanahay oo naf iyo maal baanu ku bixinaynaa oo aanu si dhaba cidna aanan u isdaba istaagayn guryaha u furaynaa qaadka u raraynaa Axmed Xasan Faarax رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن سلام يا شروينهان هلكن isugu yimaacawa ee qiimaha badan qorweynta reerka haday tahay uqaasha iyo haday tahay dhalinyarada iyo garboodka halkan isugu yimid bahda saxaafada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanka bacdi halkan caawa arrintaynu isugu nimi waxay daaran tahay waynu garanaynaa tolkeen isugu keen yeedhay
haddii aad ka dhawaajiseen oo raggii iga horreeyey ka dhawaajiyey 7 ardaa oo halkan isugu yimi ileembaha walba 4 ardaa iyo 3 gadiidyar oo halkan isugu yimi qoorweyntoodiina halkan ay caawa ka muuqanayso alxamdulilaahi rabbil caalamiin arrinta inoogu yeedheen tolkeena maanta inagu martigeliyeen musharax ruush oo halkan inoo fadhiya inaynu la qaadanno sida raggii hore ka dhawaajiyey musharax ruush markaan in yar ka iftiimiyo anigu waxaan ahaa guddidii daahir bari raggii saxeexay ruush ee wakhtigii ugu horraysay saxeexa siiyey ayaan anigu ka mid ahay ilaa maalintaa iyo maanta ruush reer yuusuf ama ismaaciil cumar xaquuq buu ku leeyahay isaga iyo ina sambul bay ahaayeen inankii ina sambul uu tanaasilay ruush oo 7 sannadood halkan u taagnaa xaquuqdiisa ismaaciil cumar inay ilaaliyaan oo ninkaasi sida uu meesha ugu samray iyo sida uu meesha u raajiciyey inaan cil lala simin ayagu halkan ka mudan yahay ninka la yidhaahdo ruush sidaa awgeed anigu maadaama oo aan ahay raggii ugu horreeyey ee saxeexaa siiyey uu ku fadhiyo ama intaa uu ku sugay anigoo qorweynta reer yuusuf ka mid ah anigoo ka axmed yuusuf ka mid ah waxaan caawa halkan ka caddaynayaa inuu xildhibaanka aanu wadnaa yahay mister ruush wakhtigaana aanu siinay arrintahay baan u malaynayaa musharax ruush anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada gadiidyar waxaan si mug iyo miisaan la idinla qaadanay musharax axmed xasan ruux faarax waxaynu ogsoonnay musharaxaas inuu 8 sano sharaxnaa ahaa musharaxii gurgurshaa inuu yahay halkaasuu ku dooraya waxaa laga garanayaa samirkiisa iyo ninkaa wixii la soo markiyey imanka hadal meesha waxaan u malaynayaa inaan oqoline marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib halkan ardaayo wada dhashay baa isugu yimi musharaxa axmed xasan ayaa soo casuumay ninkaas socod buu doonayaa doorasho ku jira doorashaduna sideedaba waxa lagu metelay ninku markuu doorasho ku jiro iyo qofka dawarsada waa la simay cid waliba waxbay kuugu ridaysaa sidaa ay xafladihii tii ila cali jaamac iyo tamba ka muuqata ninna cad libaax buu kuugu ridayaa awlal buu kuugu ridayaa halkaa isagoo taagan ninna ay tamyada kale ku siinayaa annagu markii aanu sharaxnayn aniga cabdirasaaq iyo niman kaloo reerka ahiba runtii waan kala yadidiilay iyahay markii aanu soo baxnay ayaa waxaan ogaaday ama dadka badankiisa ogaaday war cidda soo baxdaaba inay reerka tahay laakiin madasha maalintaa ninka loo fadhiyo madashiisu haddii uu xaq leeyahay in xaqiisa la siiyaa wanaagsan haddii uu xaqdarro ku soconayana dee runta loo sheego 8 sannadood ka hor raggii la isla qaatay maanta ruush baa ka jooga 8 sannadood ka hor anigu waxaan ahaa raggii diiday ee maalintaa yidhi waaryaara nin baynu soo saari karaynaaye labadan ardaa iyo labada musharax ilmaa reer kala daaya waxa xafladaha fadhiyo ka hadlayay raggii yidhi 3 baynu soo saari karnaaba waa laygaga adkaaday anigu waxaan war hawd baynu joognaayo codkeennu ma fiicna sidana ma ahaan doono codku sidii golayaasha deegaankiya ma ahaan doono wuu ka xumaan doonaa war codka aynu nin ka dhigno meel wax ku calaamadino wixii kale hadhow yimaadaana ha noqdeen wax haddii aan la dhibaataynin oo la kharash garaynin oo maanta runta ha loo sheego ma jirta baa la yidhi guddidii rag baa halkan fadhiya qaar baa xafladihii fadhiyey qaar baa suuqa jooga qalinkaa lagu dug waxay 2 musharax baynu soo saaraynaa ninka lee maxamuud sambul iyo axmedkaa maanta fadhiya bay haayeen maxamuud sambul ma joogo raggii 8 sano ka hor loogu duugay maanta ninkaasaa ka jooga xaq buu leeyahay dhibaatooyin badanna waa la mariyey dad badan baa isla soo sharaxay ilmaa real haddii aad tidhaaheen ninkaa cod baynu sina waynu soo saaraynaa waa ku mahadsantihiin aniguna taasaan idinla ta'kiidinayaa ciddii aan matelo waxaan ku ta'kiidinayaa war ninkaasi xaq buu leeyahay xagga rabbi baa aayadi ka soconaysaa ardaagan reer axmed yuusuf ee meesha fadhiya wuu soo sharaxay in badan bay wada hadleen
arrintaa waa lagu raagay wax badan bay reerka dhexdiisii googoysay sidiiba uu yuusuf ku tegey isagoo haddana reerkii dhex taagan oo leh war anigu waan soo noqdaye ninkaasaan wax ka galay ninkaas kidigood salaamta islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib hadalka dee rag baa u baxdo waxba kamay tegin hadalkuna badnaantiisa iyo yaraantiisu inuunbay isugu yimaadaan marka hore hawsha meesha la isugu yimid waxa weeye taageerada xildhibaanka in badanna soo jiitamasay in badanna uu sugayey ilaahay inaanu uga baryanay inuu ku guulaysto ilaahay baanu uga baryanay inuu ku guulaysto taageeradu marka hore halkan caawa la isugu yimid taa weeye ta labaad hadallo badan baa la jeediyey kadiidyar way jirtaa laakiin anigu malaageesa kadiidyarta iga tirsata laakiin nin reer gowla la'aanaa baan ahay xeer hoosaadna waannu leenahay kama baxo xeer hoosaad baannu leenahay kadiidyar iyo cid kastoo timaadda marnaba kama bixi karo xeerka gowlalaale nin walbaa niyadaada geli ta kale sidaa raggu u sheegay run weeye labadaa qolo ayaa horta hawsha lagu ogaa waxna way qalqalloocdeen waxna waa kala waasheen waxna waa xumaadeen sida taageeradu tahayna waynu fulinaynaa awooddeenna aan ku shaqayno cid kale oo meel inooga laxato horta aan diidno marka hore oo aan isu celinno innaga awooddoonu ka odayaal ahaan waxa weeye inaynu horta hareeraha ka moosno iyaguna ilaa innagu kala celin kara mayna qof walba wuxuu tolkii ka helo wuu ku dhex jiraa innana waxaynu leenahay tolow nin walowba waa kii ku xigay waxbaa kala jeclaysanina kii aanad markaa ugu ridayna ducada iyo la socodka raaci ka kale aad ugu ridasana intaba raaci shirka meesha isugu yimid Ismaaciil Cumar way mahadsan yihiin cuqaal iyo codkar iyo odayaal iyo dhalinyaro way mahadsan yihiin waxaan ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxa loo yimid la isu sheegi maayo iyo waxa la iska doonayo waxa la iska doonayo la isu sheegaya waa cod uun tolkayalna weydiistay tolkayo na weydiistay waana waajib inayna weydiistaan iyo inaynu siino waa waajib inayna aanu siino iyo inayna weydiistaan labadaba waa waajib ay noogu leeyihiin hanagu lahaadeen waajibada hadalka wixii horaa dhameeyey waxa weeye labadii qof ee la sheegay ee sharaxnaa ee shuruuddii hore ku jiray labadaa qof ha lagu tuntuso la soo saaro qoladaasi hadday kala hadhi weydo dee waa yeelkooda ay kala reebi waayaan marka waxa weeye labada reer inay soo baxaan innagaa jecel innagay waxtar inoo tahay magac inoo tahay soo maydaan garan marka waxa weeye dee waxa weeye saddexda gadiid yareed horta reer isagu raac reerkii ugu weynaa raac reerkii ugu weynaa waa ku dhawaaqay inuu raaco annaga raacdiisa haddaan bahayna anigu horta qurbo shaqsi baan lahaado calooshaydu waa meel soo maydaan garan mujaahidiinta hadday yihiin dhallinyarada qiimaha iyo qaayaa badan hadday yihiin ganacsatada hadday yihiin dhallinyarada dhammaantiin waa mahadsantiin hadal aan idhaahdaa oo fara badani ma hadhin wixii lay odhan lahaa raggii halkan isa soo taagay baa ii yidhi raggii halkan isa soo taagay ayaa anigu waxaan orsan lahaa ii yidhi odhan maayo ama muddadan tolka dhex joogay ha ahaato ama goortaan wax doonayay ha ahaato tol baa ii yidhi waxaan ku odhanayaa uunoo halkan ku hadhsan odayaasha cusub ee maanta yimi ee madaxda ah aad bay u mahadsan yihiin reerka dhammaan halkiinu isu yimi anigu reer sheegan maayo reer yuusuf baa halkan jooga reer yuusuf baanahay dhinac ma ihi bartamaanahay dhexdhexaad baanahay qofka baarlamankaa tegaya cod reer yuusuf buu ku tegayaa cod raas hoose kuma tegayo sidaa awgeed waxaan ahay inta halkan fadhida baan anugu ahay ee ma kale ihi oo dhan ma ihi markaa taas waa kursiga baarlamanka
intaa markaan ka gudbo axmed kayd wuxuu yidhi cunahaa la hayaa burco xeer 2 baa cunaa haya insha allah haddii ilaahay halkaana geeyo aniga rag kaloo badanba dee waxaanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa taasuwaata qofkan wuxuu ku ducaystaa ilaahay inuu tayeeyo buu ku ducaystaa oo meesha loo diro inuu ilaahay uu ducaystaa qofku ilaahay uu tayee inaan wax taro dee ilaahay haddaan halkaa tago qof wax tara ilaahay ka dhigo anigu iskama dhigi kare intaa markaan ka gudbo doorashadii baa la taagan yahay 2 cishaa kowda May naga xiga waxaan tolka sharafta badan waa mahadsantiin kuwii meeli geyn laabaatihiin imtixaan gelayo examination maaha codkiinaan meel ku tagayaa codkiinaasa meel ugu geyn kartaan haddii ilaahay ina guuleynayo doorashadii way soo gashay waxaan doonayaa campaign adag oo reeraha laga soo xulo oo anigu soo xulan maayo ee raggiina aqoonta leh iyo xildhibaanada ay ila soo xushaan oo tiro sugan ah oo arrintaa loo daba fadhiisto oo tolku u daba fadhiisto in caawa la aasaaso la bilaabo ayaan doonayaa wax xadhay ma jiraan hadal badan oo kale odhan maayo marka aynu arrintaa dhammayno xaflad gaara baan qabanayaa xalayna waan sheegay waxaan isugu yeedhayaa tolweynahoo dhan ama daahir ha noqoto ama reer yuusuf ha noqoto ama habar jeclo ha noqoto gobolka togdheer ha ahaato xaflad ballaadhan oo mahawiya baan qabanayaa markaa wixii aan dabacsanahay markaasaan ka sheegayaa